dhawaan ayaa magaalada Garowe caasimadda Puntland laga hirgeliyay cisbitaalka casriga ah ee Samcare kaasoo daboolaya baahiyaha caafimaad ee dalka dibadiisa loo aadi jiray. Cisbitaalka Samcare ayaa fuliya qaliimada guud oo ay ka mid yihiin saarista xameetida, qaliimada neerfaha, kaadi mareenka, caruurta madaxu weynaado iyo tolida dadka faruuran, kuwaasoo loo adeegsanayo qalab casri ah iyo dhakhaatiir ku takhasusay dhammaanba adeegyada caafimaadka. qaar ka mid ah ehelada bukaanada oo la hadlay Puntland TV ayaa ka warbixiyay adeegyada caafimaad ee loo qabtay waxaana u mahadceliyeen cisbitaalka Samcare iyo dhakhaatiirta ka howlgala. waxay ga xanuunsaday wiilkaas xaaladiisu waxay ahayd si adag lilaahi oo adag ilaahay baa caafimaad kale laakiin se waqtigaas u baahan badbaado khaasatan adag u baahan buu ahaa. cisbitaalka weyn oo Garowe ku hormariyay waxba waa la qaban waayay isbitaalo kale oo badan oo kale oo hadda loo kala ku xujiyay waxba way qaban waayeen. waxa la ii sheegay isbitaalkan hadda cusub Samcare in uu fariisto dhakhtarka kaliyaha ee kaadi mareenka oo nin takhasuskeed ah waa aan keenay asaga wax laga qabtay asaga dad la kuroyahay wiilkii insha Allah ilaahayna ku guuleeyay. waxaan keensanay isbitaalkan gabar aad u xanuunsan oo laga hayay xameetida isbitaalo hore oo badan aan geeynay oo aad u dhacayso aad u xanuunsanay ma sha Allah waa la qalay waxa laga soo saaray dhagax aad iyo aad bay hadda wanaagsan tahay caafimaadkeeda wax walba. isbitaalkan isaga ma hada ilaahay baale iswaanu mahad celinaynaa takhaatiirta joogta oo meesha ka shaqeysa maadaama aan caafimaad fiican ka helay. waxaan waday aabahay oo waayeel xanuunsanaya waxaan ka soo kaxay gobolka Sanaag doctor kan oo la sheegay oo la yiri wuxuu qaabilsan yahay hadda kaliyaha iyo dhulka ay laga hayay runtii waa la qabtay shaqadii aan u soconay si wanaagsan oo aad u wanaagsan. isbitaalka iyo doctorku waa ku mahadsan yihiin runtii aniga aad bay arintii culayskii iga digay wadaga caafimaadka Ilaahay baa bixiyay hadii aad u leeyahay waa sheekeynaya waana laga yaabaa inaad badbaadin ruuxin wareystaan ma aragtaan. Dr. Maxamuud Jaamac Muuse oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgala isbitaalka Samcare ayaa ka warbixiyay shaqada guud ee uu qabto isbitaalka Samcare iyo adeegyada caafimaad ee ay bixiyaan. anigoo ku hadlay magaca Samcare Hospital waxaan rabaa inaan warbixin guud ka bixiyo isbitaalka iyo shaqada uu qabto. ugu horeyn isbitaalku wuxuu u adeegaa dhammaan bulshada Puntland iyo Soomaalida iyo qof kasta oo bukaan oo xaalad caafimaad qaba. sidoo kale isbitaalku hadda si wuxuu u shaqeeyaa fully ah oo shaqooyinku qabto waa shaqooyinkii dhammaan isbitaalka iyo adeegyada looga baahnaa. walow ay mataqaan isbitaalku uu shaqadu qabto ay tahay qaliimada ay u badan yihiin sida qaliimada guud iyo neerfaha iyo kaadi mareenka. sidoo kale qaybihii kale to emergency-ga iyo daaweynta guud iyo kulli shaqooyinku si waxa weeyaan wax socdaan habsami loo wanaagsan. sidoo kale isbitaalku wuxuu leeyahay qalabo casri ah oo mataqaana diagnosis-ka aad ugu fiican haday tahay raajadii digital-ka ahayd digital x-ray batala. sidoo kale wuxuu leeyahay qalabadii casriga ah laser-ka qofka lagu qalayay. sidoo kale isbitaalku wuxuu leeyahay daawooyin casri ah oo European level ah. sidoo kale shaybaarkii oo isna waxa weeyaan mataqaana si aad u qalabeysan oo mataqaana lagu kalsoonaan karo oo garanaysa casri ah. dhammaan sida guud marka saas isbitaalku shaqooyinku qabto waa intaas. ilaa hadda isbitaalku hadda shaqooyinka aadka dardarka uga socda waxaa ka mid ah qaliimada sida neerfaha iyo qaliimada guud iyo kaadi mareenka. qaliimada hadda ilaa bishan hadda la sameeyay ilaa waxay gaarayaan 7 qaliin. qaliimaduna hadda waxa weeye wax mataqaana kulli waa lagu wada guuleystay si wanaagsan oo mataqaana hufan service-kooda waa lagu sameeyay. inta waxa dheer qaliinka waxa lagu sameeyay waa qalab casri ah oo laser ah oo mataqaana isha ka duwan waxyaalaha lagu qalo maantay isbitaalada guud iyo meelaha kale.